الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد العزيز محمود شيخ مصطفى maanta oo jamaca waxaa soo booqday xeebta Jazeera xaqiiqdu waa markii labaad ay tahay aan soo booqdo aan nasiib u yeeshay aan soo booqdo ku dalxiiso oo aan naacawda Jazeera maadaama isbuucii la mashquulsan yahay waxa la imaanayaa maalinta jamaca dadka inta badan ay soo booqdaan marka waxa dareemaysaa naacaw qabow macnaha gaar ahaan dalku wuxuu mudan yahay meelo fara badan oo laga sameyn karo dalxiisa jiro oo dadka ay ku dalxiisi karaan marka in badan waa bogaadinayaan dhalinyarada dadka qurba joogta inay soo booqdaan ku dalxiisaan dalkooda waa dalkoodii iyaysan ka tahriibin aad iyo aad u kala duwan tahay maxaa yeelay maanta waxaan wadanaa qaac ama sida u taqaanay geedkan kamanka iyo waxaan wadanaa hidii dhaqan waxaan nahay asxaab badan oo isku xiran waxaan rabnaa in markii qoraxdu ay noo gaabato inaan soo sameeyno maaragtay bandhig cajiib ah ama wax caqabad aan kala kulmay dhalinyaradu waxay diyaar u ahaayeen inay dalkooda ku soo dalxiisaan inay maalinka firaaqada ay aastaan jimcada ama maalin la mid ah inay ku soo qaataan hawo macaan jawi degan oo qurux badan inay ku soo qaataan xeebaha dhulkooda aad ayaan ugu faraxsanahay wax caqabad aan kala kulmay ma jirto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta maadaama asxaabteeda dalxiis aan ku soo qaatay xeebta Jazeera oo hadda aad joogno sida hadda u jeedin asxaabteeda oo kala duwan oo maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta waqti la qaato ay tahay maalin jimco ah taasi oo ku qurux badan in la qaato waqtiga mararka koobkiina farxadeeda anigoo joogo xeebta weyn ee Jazeera ayaa kamid ah xeebaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho looga dalxiis tago laakiin maanta dareenkii wuu iga duwan yahay waxaa yeelay maanta asxaab badan macallimiinteeda asxaabteeda ugu dhow oo maanta ila joogto oo aan waqti la qaado waxaan uga baaqi lahaa inay dalkooda quruxdiisa ka qayb qaataan annaga waa noo jeedaan dalxiis aan ku jirnaa waa hawadaan qaadanaynaa in meelaha stresska oo ku dilinay wadankooda imaadaan oo quruxda wadankooda ay ka qayb qaataan ayaan kula dardaarmi lahaa maslaxa waa maasanta hatta markii ugu horeysay Jazeera imaado dhabtii u maleeyeen macnaha mana filin meesha waxaan maanta kala kulmay waa wax aad la yaab u ah isdahayn meel saan qurux badan kamid wadankaaga waayo waa arkay leedo waa arkay geelaq marka waa meel aad u nidaamsan waa meel ku fiican fantastaha iyo tamashlaha iyo marka aad xoogaa dareentay inaad refreshment u soo doonato dhabti kiis ay ku noqotay asxaabtayda ay u soo qalqalayna meesha imaada laakiin maanta wax aad u cajiib marka kood waxa laga yaabaa inuu jawiga waxa ku cusub yahay xeebtii way marka labaad marka soo booqatid waxa dareemaysaa macnaha waa la qabsanaysaa waaba ma moogaan kartidba mar saddexaad iyo mar afraad inaad soo booqatid macnaha aad haminaysaa marka in badan asxaab badan aan kula kulmaa oo meeshan soo booqato meelo kala duwan magaalada kala duwan ka imaatay oo maxallaha si ugu dalxiisaan xeebtan weyn ee Jazeera marka in badan aniga waa bogaadinaya dadka hadda hore u soo booqdo wayba arkeen inta aan soo booqano aanan arkin inay in badan imaadaan hadday mar imaadaan ayaga ma ka joogi doono insha Allah imaan doono shukran